رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 40 حديثا في عدة المسلم في البلاء والوباء. عن قيس ابن أبي حازم رضي الله عنه قال: أتيت خبابا وقد اكتوى 7 في بطنه فسمعته يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. أخرجه البخاري ومسلم. waxaan ku jirnay 40kii xadiid ku saabsanaa waxyaabaha looga badbaadayo cudurrada iyo dhibka haddii lala yimaado, oo xadiidan waxay na tilmaamayaan oo na tusayaan qofka uu la yimaado. can qays bn abi xaazim qaala wuxuu yidhi: ataytu khabaaban. saxaabiga khabaab ibnu larit lagu magacaabo ninkaasu u yimid. waqad igtawaa isagoo isgubay 7 toddoba meel buu iska gubay oo dab buu isku dhiftay. fii batnihi wuxuuna iska gubay calooshuu iska gubay. kollay marad baa ku dhacay, maradkaasuu markaa dab isaga dhajiyey. fasamictuhu waxaan maqlay buu yidhi khabaabo yaquulu leh: lowlaa ana الnabiya salى اllahu عalayhi waalihi wasalam nahaana, haddii aynan jirin ana الnabiya rasuulka nahaana inuu naga reebay sala اllahu calayhi wasalam an nadcuwa bilmowti, inaan mowt ilaahay ka barino iyo nafta inuu naga qaado, la dacawtu bihi, mowt baan baryi lahaa. xanuunka i haya iyo waxa dhibeen ma aragtay la kulmay iyo waxa aan ku sugnahay xanuuna, haddii hadalka rasuulka uusan jirin wuxuu yidhi waxaan dhihi lahaa ilaahow nafta iga qaad. waa xadiidkii hore aan soo marayno rasuulkeena sal allahu alayh wasalam inuu diiday qofka mowt inuu weydiisto ilaa inuu yidhaahdo mooye: allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii ida kaanat alwafaatu khayran lii. inuu sidaa ku ducaysto mooye inuusan mowt iska baryin. alkayiga waxaa lagu alkayu binnaari weeyaan, min alcilaaji almacruuf fi kaiiri min alamraad. dabka la isgubo iyo gubidda la isgubo waxa weeyaan waa caado macruuf oo ummadahoo dhan way isticmaalaan in cudurro badan iska gubaan, waana daawona way ku jirtaa. waxyaabaha rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu sheegay oo daawada ku jira waxaa ka mid a malabkaa ka mid a sharbatu casal aw shardatu mixjimin, toobinka oo dhiigga la iska daadiyo iyo in la isgubo. haddana waad ogtihiin cudurrada dhibka badanee nacuudu billahi min dalika, kansarka oo kale hadda chemotherapy waxa dhahay isticmaalaan oo dab ah, waa cirbad iyo dab laga dhigay weeyaan, oo qofka hadda timaha ka duulaya, jirkiisii baa engegaya, midabkiisii baa isbedelaya, oo waxyaabaha lagu daweeyo hadda dadka qaarkood ku caafimaadaan. cudurrada wuu kaga baxaa, dabku wuu kaga baxaa. waa dabkii oo la casriyey markaa oo injection iyo wax laga dhigay. waxaa marka macnaha guud ee xadiidka culammadu waxay leeyihiin macnaha guud: alxadiidu mithaalu liصaxaabiyin jaliil radia allahu canhu fi imtihaali اlamr waالsabri cala اlbalaa. saxaabigan oo aad u xanuunsan oo haddana isgubay wuxuu ka cararay inuu dhaho ilaahu nafta iga qaad. aad buuna u xanuunsanaa, waayo hadalkii rasuulku ku dhaqmayaa ee saxaabada uu u diiday inay mowt ilaahay ka baryaan. waana khabaab ibnu larit weeyaan
وسابقين كيبو كجرا أسلم سادس 6 أيها ضدك ما كان ودي بيجريبوها قفك اللحاد أو إسلام أيها ما كم بدأنا رسولك ويمي يسوي جوجا كعبة في ظل الكعبة ويرسولك الله ما إله إنه بردي رسولك الله ما نودر قارتي كذب وكان رسولك صلى الله عليه وسلم كيري نيو كيري هدك دقينا ضدك إذا كهري أنت قفك الله سوقبته وقد لو جيحه ومشار السوق هذا أيام مدحا لقيت جيحي جري لبا لقيت جري ولكنكم تستعجلون بكير ودقدقي ساني صبرا وانك سويان حديثك وحياضنا بلغ فايدي سن حديث كان خباب ورسولك كما قلي او اموت انا ما رقتي لو يرني الصحابه رضوان الله عليهم نماذج للحياه السليمه عقيده وعباده وسلوكا حال السراء والضراء ومواقفهم ومنهجهم العام أسوة حسنة لنا صحابة إني دad lagu daysado dhinaca aqeedada iyo cibaadada iyo dhinaca suluuga jidkii rasuulka la raaco marka dib lagu jiro iyo markaana lagu jirin waayo isagoo xanuunsan buu markaa sabray oo uusan mowd u yeeranin taana waxay noo tahay dariiq fiican oo qofka muslimka markuu xanuunsado oo xanuun badan uu hayo waxa la doonayaa inuu ilaahay dartii u sabro oo uusan markaa nafta iska qaadin ama dadka qaarkii siday samaynayaan uusan isdilin ama dadka qaarkii loogu sheekeeyo oo la dhaho ma aragteen nolol dambe kuma harsano waa dhimanaysaa waxaa fiican cirbad in lagu siiyo nafta laga qaado ama kaniinkan aad u cuntood ma aragteen nafta kaa baxaysa taasoo kale inaan la samaynin maaha isaga inuu isdilo hadda dad ay yidhaahdaan ama takhaatiir aanan run sheegaynin inay ku dhahaan arrinkaas samee sidoo kale waxaa laga faa'iidaysan أهمية النماذج الإيجابية في مواجهة البلاء والوباء في حياتنا خاصة من سبق إلى الدار الآخرة ممن أثنى الله تعالى عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إن أي هبونتا إن قد يسنو ددك نجوه الرئيي صحابتها خاصة وآخرنا نوجه المري إلهنا قرآن قوة أماني cudurradii ku dhacay siday ugu sabreen marka maanta cudurrada jiraadeen ugu dhacaan waxa la doonayaa inaan sabarno ma qofkii inuu iska qayliyo dad kale inuu ku eedeeyo inuu dhaho low sida haddaan samayn lahaa inuusan nafta iska qaadin ma aragtay laakiin uu sabro sida saabiqiintii ay sabeeyeen al-khabaab oo kale oo ka mid ahaa wasaabiquuna al-awwaluun min al-muhaajiriin buu ka mid ahaa wal-ansaar طيب حديث كان سيدو كله وحلقة فائدة في الحديث جواز الكي يعني بنانتها هاي إن لزقو بكره وهي خباب مركي الله صوت علي تضبط دباكو يالي وبنانتها ويزقو بي حنون هاي عذر هاي ويسكبو بي رضي الله عنه لكن حديث حتى الماما يسا رسول كان صلى الله عليه وسلم إنه ببيتان كديدي وأنها ويري عن الكي نهي سحيلي إنما هو لمن يعتقد أن الشفاء من الكي قفك دو آمن سنية يوحى لقو عاف ماضي كلية قبتانك كلية لقوبي وقفك إني تاي تاسو كلا لديدية لكن قبتانك داد آمن سنتهي إن إلهي وقوقو عافين اليوم وإلهي وانا وقو عافين الموية عافماتك الآدن هلينين تاسو كلا وقلنان تهي إلا أن تتبعوا آمن سنية إن دبك كلية وحو عافية Soomaalidu waxay dhihi jireen cudur iyo dab meel ma wada galaan bay dhihi jireen hal meel ma wada galaan marka dadka waa arkaysaa Soomaalida qaar gacmahay ka guban yihiin qaar wajiga ka guban yihiin qaar calooshay ka guban yihiin qaar dhabarka laga gubay qaar lugaha laga gubay dabka aad bay Soomaalidu isticmaalaan runtii marka waa dawo fiican weeyaan saxaabigaana uu sameeyay laakiin marka la gubanayana in la aamino in lagu caafimaadayo magaca Ilaahay iyo idinkiisa in lagu caafimaadayo taana in la aamino weeyaan طيب ويجوز سيدو كده أن يكون النهي من قبل التوكل وهو درجة أخرى غير الجواز سيدو كده وحبنا أن يكون النهي من قبل التوكل قفك إنه تلسعته ويان ديديتان كالديدي دبك مركي الديدي إنا دبك كلية تلسعته
حديث كسيدو كالو حلقة فائديسا الفوائد التي ذكرت في الحديث السابق. حديث كهري عن صوم مرني رسولنا صلى الله عليه وسلم ويري موت يانا لو يديسان قفك ديب كدع عدرتيس لابد هدوية هنا هذا إله إنه لي أدين ولش خير وجرته إله إدل هدي يريد خير وجرته كان ولصعدايا وحديث كهري كل لم يجي. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب حوبا بهي ما أنزل الله داء إلهي عذر مسود الجيو إلا أنزل له شفاء إلهي دو سود الجيو عافمات عذر رضان وجراء ويسو دقين وإلهي بسود الجيو. حديث بينه روا كان صوم مرني سنة كي هل مربع عذر كل سود الجيو ويل كستو فيدن يوح كستو أفبنان يسبرار كستون أفكار لغا حيرين عذر كي وقليا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وكان يري مكة ويلاشنا الدبولة وحيابها بيها لغو شبتنا أفكار كحرة ويلاشها لغو عنانا الدبولة والدبول صار. هذا أنا بابكم وقوت المامية عذر مجرو إلا إلهي وحوسو دجي عافماتك يوحي دودي سيبوسو دجي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. أخرجه مسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحليه عن رسول الله سوى كورنا أنه قال وحيري لكل داء عذر كستا دواء بوليه دو ليه وإله وأسود الجيه. فإذا أصيب دواء الداء عذرك دوديسي هدي أصيبته هلاشو دواء لسميه عذرك بالو دويه هدي أصيبته برأ قفك وعاف ماضيا عذرك وعاف ماضي بإذن الله عز وجل. إذن إله أوليه بوكو عاف ماضيا هذا داود كلمة لسمع عاف ماضي لكن إذنك إلهي أي الوعاف ماذا. حديث كالوح ليه علمه من علم وجهله من جهله. إلهي عذر بوسود جي عذر كستنا دو أسود جي لكن علمه وحابرتي من علمه قفبرتي إلهي أوبري وجهله داودين وحا جاهل كالنقضي من جهله قف جاهل كالنقضي. taas waxaan ku garan karnaa cudurrada hadda jira hadda cudurkan 2019 bilowday bishii December ama November laga helay dhulka Shiinaha ee lagu magacaabo COVID-19 muddo socday talaal baa loo raadiyay baxthi badan baa la sameeyay China laga sameeyay London baa laga sameeyay Jarmalka laga sameeyay meelo badan baa laga sameeyay wixii la isku dayo tijaabo la galay trial wax lagu magacaabo pre trial kadibna waxa lagu guuleystay talaalkii in la helo oo culimadu leeyihiin sameeyay ilaa 90% waa lagu caafimaadaya. AstraZeneca han la isticmaala kamida Johnson kamidka leeyahay kamida midkaan ma aragtay Jarmalka lagu sameeyaa kamida waxyaabahaas oo dhan baaritaan baa lagu gaaray oo Ilaahay qofuu baray baa bartay dad badan hadda way raadinayaan oo heli laayihiin cudurka Ilaahay uu soo dejiyay marka bi hada alhadith cudur kasta dawo leeyahay waa khasab in dawo loo helo laakiin qofuu Ilaahay baray buu ku hanuuninayaa qofkii Ilaahay uusan barinna markaa ma helin. taana waxay ku tusaysaa markaa qofka muslimka cilmiga raadintiisa iyo baxfigiisa inay banaanta wax ka soo yimaada oo cusub oo cudur ah qofka muslimka ee dhakhtarka ama wax garanaya ama daawo Soomaali ha garto ama daawo kale inuu baaritaan sameeyo oo isku dayo cudurka sida daawo lagu heli lahaa waa shay xadiidku uu tusayo weeyaan.
rasuulkana sal allahu alay wasalam markaa sidaasuu yidhi likulli daa'in dawaa faidaa usiiba dawaa'u daa'i bara'a biidni illaahi caza wajalla dawadana idinkii ilaahay unbuu qofka ku caafimaadaya dawadaa keligeed ma caafinayso waad ogtihiin haddaa dawooyinkan hadda la isticmaalo ee cudurkan dhibka badan ilaahay naga qaade dad badanoo lagu duray waxay dhaheen dhiiggii baa xargagay blood clot badan bay samaysay iyo dadka waa ku dhinteen qaar waxay dhaheen iyagoo cudurkii qaba istallaalay waa ku dhinteen biidni illaahi baa meeshii markaa ka maqan idinkii ilaahay looma idmin dadka inay caafimaad ku helaan dawadaas qaarna way kaga kaceen iyagoo sakaraad oo hadda la leeyahay maalan distance iyo waxoo dhan iyo looma baahno iyo face mask in la xirto ayib xadiidkan waxyaabo badan baa laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid a khalaqa allahu caza wajalla addaa'a waddawaa ilaahay cudurkiina inuu uumay dawadiina inuu uumay wa kullun biqadaa'i illaahi wa qadarihi arrinkaana waxay ku dhacaysaa qadihii ilaahay iyo qadarkiisii dadku waxa weeyaan xanuun way wada qabaan ninbo cudur baa haya lama wada caafimaad qabo cudurrada dadka ku dhacaya ilaa zamankii adduunyadan la uumay abuuna aadam ilaa hadda culummo dadka dawaysayna way jirtay oo ilaah baa ku ilhaamiyey marka qadihii ilaahay cudurkiina wuu soo dejiyey dawadiina wuu soo dejiyey laakiin dad khaas ayuu balay sidoo kale waxaa laga faa'iidaysan man asaabahu daa facalayhi sabr qofkii cudur uu ku dhaco waa inuu sabraa walixtisaab uu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ajir badan baa loo qori cibaadadii uu samayn jiray hadduu cudurka ka celiyo haddaa waxaa leeyahay malaa'igtii baa la amrayaa waxaa leeyahay addoonkayga muxuu samayn jiray salaad buu tukan jiray sadaquu la bixi jiray adkaar buu la iman jiray u qora cabdi isagoo saxiixa wuxuu samayn jiray sidoo kale waxaa laga faa'iidaysan wa talabu dawaa inay muslimiintu raadiyaan cudurka dawadiisii inay raadiyaan oo aynan ka quusan ay dhahaan cudurkan looma helo wax dawa ah dad baa sida aaminsan cudur kastoo jira waxa weeyaan dawadiisi waa la soo dejiyey marka inaan laga caajizin oo aanan markaa la quusanin maxaa yeelay caafimaadka iyo cudurkaba gacmihii ilaahay bay ku jiraan ayib waxyaabahaas oo kale ayaa xadiidkan laga faa'iidaysanaya sidoo kale xadiidka waxaa ku jira wa fi lxadiidi ihbaatu اطibbi in dawadu ay bannaan tahay oo la isdaweeyo qof baa xanuunsanaya wuxuu ku leeyahay cudurkan ilaahay baa ii keenay waxba haddee dhakhtarna weligii ma aadina mana aadayo war dhakhtar aada cudurkan waa wax yar waa la iska qalaa dad badan baa ku caafimaaday dhakhtarka markay u tageenoo dawooyin loo qoray wuxuu ku leeyahay isma daweynay bal rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi tadaawuu cibaad allah isdaweeya طيب وفي الحديث تحريض على طلب الأدوية للأمراض وتشجيع على البحث العلمي sidoo kalena xadiidkan wuxuu nagu baraarujinayaa in baxi la sameeyo research in la sameeyo adduunyada hadda meelaha horumaray oo kale adduunyada waddamadan dawooyinka soo saara dhaqaalaha ugu badan iyo budgetka ugu badan waxaa lagu bixiyaa researchka lagu bixiyaa wax in la baaro intaasoo dhakhtar baa la dirayaa maanta oo dhan wax bay baarayaan intaasoo sanay wax baarayaan waxbay soo saarayaan laakiin meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa in budgetka ugu badan lagu bixiyo hub in lagu soo gato iyo dad in lagu laayo dhaqaalaha ugu badan baa lagu bixin dadna waxay ku bixinayaan research bay ku bixinayaan wax cusub in la sameeyo marka islaamkana taasuu amraya ileen rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi cudur ma jiro ilaahay uu soo dejiyey dawana uu soo dejiyey hala raadiyo hala baaro calaa talab aladwiya watashjiic cala albaxth alcilmi ayib sidoo kale waxaa laga faa'iidaysan faljahlu alxaadir bidawaa'i alwabaa laa yacni cadama wujuudihi in jaahil laga noqdo la garan waayo cudurrada yimid inay dawo leeyihiin
kuma tusayso inaynan dawo lahayn laakiin dadka jaahilka ah taana xadiidkii aan sheegnay baa ku tusaya oo dadku day raadiyeen way helayaan cudur ma jiro cudur kasta ma anzala allahu dawaan illa qad anzala lahu shifaa cudur ilaahay ma soo dejin illa dawo u soo dejiyey calimahu man calimahu qof gartay oo baaray oo ogaaday baa og wajahilahu man jahilahu ama waxaa tidhahdaa ilaahay qofkuu baray baa garanaya cudurkii qofku ilaahay ka madoobeeyeyna dawadii ma garanayo cudurkaa dawadiisii ayib sidoo kale waxaa laga faa'iidaysan xadiidkan oo faqrada odhanaysa faإida usiiba dawaaءu daa'i bara annahu laa yajuuzu mumaarasaة الطib wاlcilaaji ila min caarif qof aana dhakhtar ahayn dadka inuusan daweyn karin qofkii qof daweeya oo dawo khaldan u qora oo qofkaa wuxuu ku noqdo qofkaa mag baa laga qaadaya hadduu dhintay haddii dhib uu soo gaarsiiyo caafimaadkiina sidoo kale xaqiisii baa laga qaadaya saas weeyaan marka cilaajku waa in la barto weeyaan hadduu yahay mid cilaaj markaa طibbiga oo diiniga hadduu yahay iyo midkan kale xadiidka hadduu yahay labadaba dadku waa inay bartaan hadda waayahan dad waxaa iska badan dadka iska daweynaya meelo acshaab baa la furtay iyo dawa soomaali kan wuxuu u roon yahay baabasiirta kan hargabku u roon yahay kan gaasku u roon yahay kan kansarka u roon yahay kan ilmo la'aanta u roon yahay kan boostingku samaynaya kan mee qof oo ku dhimatay lama rabo qofku waa inuu cilmigaasi daawo u bartaa geedahan la isku darayo oo la isticmaalayo sun hadday noqdaan oo qofka uu ku dhinto qofka waxa weeyaan waa inuu qofka xaqiisii bixiyaa weeyaan qofkii dhakhtarnimo aan lagu aqoonin iyo inuu dadka daweeyo ee dadka daweeya qofkiina wuxuu ku noqdo fa huwa daaminun isaga damaano qaadaya qofka oo laga qaadaya waa sidaa weeyaan marka qof caarif unbaa dadka daweyn kara waxyaabahaas oo dhan marka ayaa laga faa'iidaysan sidoo kale waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan التداوي لا ينافي التوكل isdaweynta inaynan tusaynin qofka inuusan ilaahay tala saaran war maxaa isu daweynaysaa ilaahay ma tala saaratid qofka dhakhtar kasta hadduu aado oo halkan uu ka tago oo waddamo kale uu tago isagoo caafimaad raadinaya lama odhanayo qofka tawakulkii ilaahay buu ka tegay bal dawuu raadinaya laa yunaafi marka qofka daawo hadduu meel kasta ka raadsado la odhan maayo ma aragtay haddii hadda zamankan waxyaaba badan baaba soo baxay rimay gacmeed waxa lahaaba soo baxay oo gabdhihii dhali waayey hadda in ma aragtay iyadoo jirta 60 iyo 70 ilmo lagu beero oo odaygiina wixiisii baa laga soo qaadi iyadina waa laga soo qaadi ilmo galeenkii baa la gelini meeqa ma aragta hadda ilaahay uu ku siiyey laakiin dhakhtarka samaynaya waa inuu yahay nin lahu wuxuu samaynayo waxyaabaha la isku darayna labada qof inay yihiin in la ogaado weeyaan qof lagu kalsoon yahay cilmigii marka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dawada waxyaaba badan buu dadka u furay waana kan rasuulka sal allahu alayh wasalam likulli daa'in dawaa cudur kasta wuxuu leeyahay dawuu leeyahay ee ha la isdaweeyo wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين